England baan ku noolaa waxaan biloway barta Soomaaliga bishii hore bilowday nasiib wanaagsan ku rajeynaa nabadgelyo mahadsanid what's next to that? Sa. sida arkaysaan ardayda imika iyaga wada hadlaya oo qofba uu tijaabinaya intii maanta uu bartay waana sida macallin Saciid Saalax Axmed uu sheegay qayb kamid ah casharada ay maalin walba qaataan macallin Saciid Saalax Axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuna soo dhaw barnaamijka Xiriiriya America imsa ardayda halkan ku haysa fasalkan imika waa 18 arday laakiin fasal kala jira oo iyagana tiroodinkoodu qaarna ka yar yihiin kuwana ka badan yihiin kuwana waa kuwa cusbaaban u malaynaya waa kuwa cusbaa oo ajnabi dad aan af Soomaaliga hore ugu hadlin oo bilowga ah baa la yiraahdaa gartay caruur Soomaaliya ayaan iyana ku arkayay ama dhalinyaro Soomaaliya waa kuwa wadanka ku dhashay Mareykanka waa run qaarkood intooda badani waa Soomaalidii halka ku dhalatay qaarna waa dad Soomaali iyo Afrika kale iska dhaleen oo asalkoodaba aanu afkooda hooyo Soomaali ahayn waxa ku jirta gabadh Oromo iyo Soomaali iska dhashay oo tiri kuma hadlo marka qoladaas ay igu daran oo sida looga kala saaro oo loogu ogolaado kalaasakan ayaa dib iga soo maraa qof kasto magac Soomaaliya leh marka hore waa u diidaa oo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxa jira fasal kale ama line kale raacaan kuwa af Soomaaliga in ku hadla oo bilowgooda goona loogu dhigaa waxaana loogu dhigaa si ka degdegsan kuwan oo ka duwan now we're reading both ways. Ba ta be te bi ti bo to bu tu good in this column read downwards. What is it? goorma la bilaabay in af Soomaaliga laga dhigo jaamacadda Minnesota muddaanu ugu jiray halgan inaanu jaamacadda tan ku darno maadaama ay agdegan yihiin oo community-ga intaasa waaga aanu bilownay baadidoonkiisa waxaa dhiganayay 600 oo arday oo Soomaali ah waxaa la ogolaaday 2009kii ayaa la bilaabay kalaasida tan si rasmi ah oo aan halka la bilaabay anigu intay laamka ka aflaxdayna inteebada oran leed weey macnaheedu waxa weeye labadii sanadoodba qoladan aan ahayn af Soomaaliga ku hadlin labadii sanadoodba tira ka aflaxda haba yaraatee kuwa af Soomaaliga ardayda ku hadasha laba sanadkiiba isku celcelin ilaa 40 arday baa af Soomaali ka barta
halka oo ka baxa oo ku buuxiya luqadii labaad oo laga rabay afkooda barta suugaanta wax ka barta oo ku meel mara oo jeclaysta war wanaagsan weeye Siciidow markaa bal hadda waxaad ka warantaa maadaama jaaliyad ballaaran oo Soomaali ay magaaladan Minnesota ay magaaladan Minneapolis joogto dadkan bay isdhex galaan dadkan maadaama af Soomaaliga ay danaynayaan inay bartaan waxaa jira qofaf gaar ah oo aan magaalada ku arko oo caddaan ah oo af Soomaaliga iyagu dibadooda weliba kuwa ku barta dhexgalka dadka ayaa ku hadli og inkastaan xeerarkiisa iyo naxwihiisa aqoon oo kaga fiicnaada kuwayga aan u dhigayo kuwa kanu Soomaalida ku qabsadaan naxwaha weedho iyo sida loo dhisayo iyo waxa la oran karo laakiinse kuma degdegaan ku hadalkiisa kuwa dadweynaha ku dhex bartay ganacsiga iyo suuqyada aad aragtay dhex taga ee ardayda ay u dhigaan oo Soomaalida aad u dhexgala ee ka barta way isdhexgalka aad bay uga faa'iideysaa oo ay ugu tagaan inkastoo dadka Soomaaliyeed markay qof ajnabi ah oo af Soomaali ku hadlaya ay arkaan ay ka qaadaan yaraha sas oo ay ka shakiyaan oo ka durkaan haddana waa la isku dhexgalaa waa la bartaa macallin Siciid Saalax Axmed aad iyo aad baad mahadsantahay waa mudan tahay way imka 10 kaaga waad iska noqonaysaa waan malaynayaa annana waa sii soconaynaa nabadgelyo